أنت لقلبي جنتان فالحب قد فاق الخيال أنت لقلبي جنتان فالحب قد فاق الخيال degmada Arcadeeye ee gobolka Sool waxa maanta ka dhacday xaflad ballaaran oo xariga looga jareeyay masaajid iyo madraso cusub oo loogu magac daray Xaajiinda Deeqa u Daahir Afqarshe masaajidkan iyo madrasadan cusub oo ay dhiseen qoyska reer Cabdidhiif waxa furitaankii ka soo qayb galay culimo ganacsato cuqaal qurba joog dhaqaatiir iyo marti sharaf aad u tiro badan culimada furitaanka masaajidka iyo madrasada ka soo qayb galay ayaa u mahadnaqay qoyska reer Cabdidhiif waxayna bulshada ku dhaqan degmada Arcadeeye ugu baaqeen inay ku cibaadaystaan waxna ka bartaan daryeelaana masaajidka iyo madrasada loogu magac daray Xaajiinda Deeqa u Daahir Afqarshe ugu horeyntii Xasan Cawil Cabdidhiif ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha masaajidka iyo madrasada ilaahayna abuurtay ayaa mahad u sugnaatay number 1 mahadda labaad waxa leh marti sharafta culimada gobolka dadkan soo camiray maanta masaajidka furitaankiisii la soo kulmay ee soo waqtigoodii maanta soo geliyay furitaanka masaajidka ayaa iyaguna mahad leh inta markaan ka gudbo waxa weeye maanta masaajidkan had waqtiga ciir kulli wadaadadii hore horeeyay ciir bay ku sheegeen in kasta inaan xaq hore ka dadaalin oo aynu waqtigii ku luminay kulli waqtigii inaga go'aa kulli muxuu ahaa wayna socdaa inaga harimaayo waxaan ka warramayaa masaajidkan waxaan waad aragteen waxa masaajid weyn oo qaybo badan leh laba qaybood qaybta dumarka qaybta dambu leeyahay waxa ka dhiman safiitada iyo wixii lagu xiri jiray lagu kala gudbi jiray baa ka dhiman bari taa lagu xirayaa insha Allah waayo wadaadkiiga horeeyay baa hadalkiisu wuxuu ahaa rag iyo dumar de way lagu cibaadaystaa sidaa darteed yaan loo qaadanin in de qaybtii dumarku ka maqan tahay ee way baritaa lagu xirayaa safiitadii iyo wixii u dhaxeeyay sidaa dumarku ha u ogaadaan ta kale masaajidkan intuu leeyahay waad aragteen dhowr iyo $800 buu marayaa dadku de dollarka ay haystaan waxay la beegsadaan muxuu ahaa guriyo iyo barkado iyo annagu xaggaasaan u baydhnaa haddaan reerkaan nahay hadna lagu daydo hoy dhulbaantow hadna lagu daydo hadda mid saddexaad baanu asaasaynaa haddii alla idmo meeshii aanu ka dhisi lahayn baanu doondoonaynaa kan markuu dhammaado mid saddexaad baa muxuu ahaa haddii alla idmo noo qorshaysan inaanu dhisno halkaanu ka dhisi lahaynna waanu ka tashanaynaa waa doondoonaynaa sidaa darteed waxaan leeyahay dhulbaanta han lagu daydo aan lagu daydo lacagtan de qofku nolosha adduunka yoolkeedu yahay laga beegsanayo aakhirana ha la eego beri dhowaytay guumays markaanu kan la bilaabayba waxay noolan jireen reerkan wasaajiduu ku waashee dad meelaha laga xamanaya waxay odhan jireen reerkan masaajiduu ku waashee tolo maxaa jira waxaanu idiin sheegaynaa in mid saddexaadna haddii aadaydbo hadda awsta uu ku jiro qorshaha taasi waa ta kale masaajidkan qiimihiisu intaa yahay quruxda ay arkaysaan islaanta maanta keliya ee waalidka ah loo noolay Deeqa u Daahir ayaa fikirkeeda lahayd wax ka qayb galay haddaan reerkan nahay gabadh dhinaca raambaa oo khadreel la yiraahdaa jirta oo weliba xanuunsanaysa oo soo codsatay duco in muxuu ahaa looga diro golahan maanta furitaanka xafladda khadreel raambi ayaa ka qayb gashay gabadhaas muxuu ahaa reer ahaan loo tarraxda iyaduna haddii alla idmo waa loo ducayn doonaa golaha looga ducayn doonaa islaanta hooyo laftigeedu way xanuunsanaysaa iyada laftooda ducada in muxuu ahaa loo duceeyo ayay u baahan tahay masaajidkii waan ka warramay qiimihii uu ku kacay waan ka warramay qabyadiisii qaybtii dumarku inay kala xidhkii muxuu ahaa dhiban yahay oo berri lagu xidhayo waan sheegay niman yahow markaa waxaan u maadayaa saddexdii arrimood ee ilaahay sheegay ee sadaqatul jaariya ayuu ka mid yahay waxay ahaayeen masaajid masaajidkana qola madaxweynaha iyo ninka dambe ka dhexeeya sida awoodeed loo soo amaray sida noqon dadku soo amaray
saddexdii qodob ee ilaahay sheegay arrimood ilaahay sheegay buu ka mid yahay waxay ahayd masaajid iyo ceel iyo weel saaraxa oo maxaan maayaa soo bahayn saddexda arrimood ayuu ka mid yahay waa masaajidkii muxuu ahaa dee waad aragteen dadku maanta berigii dhaweytay la asaasayay baa waxay yidhaaheen rag masaajidka saddexaad ma qaadi karto ala caddeeye qolyo dee kan yar joojinaya oo meel kale la rabay bay ahaayeen kolley meeshan dee xanuun baa gala ala caddeeye oo waad aragteen oo dee iskuulladii iyo waxaad moodaa inay muxuu ahaa meelo la kala dhigdhiganayo oo meel la kala dhisdhistay yaan loo qaadanin in masaajidka dhismihiisu uu ku salaysan yahay reer ka guuraya oo wax ka soocanaya yaan loo qaadanin waa guri ilaahay ciddii gelaysa iyo ciddii ilaahay ku caabudaysa dee waxa weeye way u furan tahay cidi ma laha yaan sidaa dad baa sidaa waxaa laga yaabaa inay sidaa u fasishaan hadalka waxaan ku soo koobayaa jisaakal ilaahay qofkii dhisay ciddii dhistay iyo ciddii fikirka ahayd iyo ciddii u socotay iyo ciddii kelmad u tiri iyo ciddii shilin ku kordhisay cid walba jisaakallaahu khayr ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro ilaahay durduraan go-ayn ha uga dhigo maxay teerey gabadhaana ha loo duceeyo hadalka waa tii la yidhi wakhtigu waa dhow yahadood khudbaddii bayna sugaysaa waxba ku sii dheeraan maayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaaday furitaankii masaajidka furayaashiisii kolley culimmadii gobolka loo bandhigay dee iyagaanu furay ku wareejinaynaa ciddii markaa u soo wakiishay wadaadku ee furayaasha muxuu ahaa aanu ku wareejin lahayn idinkaa noo sheegi doonaan u maale xasan cawil oo ka wakiila reer deedhiif oo dhan ayaa insha allah furihii ku wareejinaya sheekh jaamac yaasiin gudoomiyaha ما شاء الله وحكوا لي جينا إن شاء الله ميكروفون كشيخ جامع ياسين يعني وحوي قابك وككوبي هي قاب تاسيجيت كهالك وحين وقد سمحتك والله وقول منه حلو ترجلي دمرك أما هير يرادين أما هو ويلادين أنا ترجلي اللي بقول لنا كلا دكتان قال كورنا إنه يقول دكتور قال كدمنا إنه يقول دكتور قيب تكلنا وحكد السن محت قول كل لو ترجلي سجنا رجع oo isaguna aan ugu talagalay laba qaybood inuu waxbarashada lagu qaato oo qolana gelinka hore qolana gelinka dambe haddii ragga gelinka dambe ragga waaweyn ay galaan gelinka horena dhalinyaradu ay galaan halka gabdhahana waxa weeye waxaan ugu talagalay jamaca shanta salaadoodba inay yimaadaan qaybta dambe halka waxa ku yaala qolkii u degaya wadaadku iyo labadii masquulood iyo barxadii dhismahan masaajidku kharashka uu ku kacay وحوي لبنا نوع موقف سمايا نوع وحوي الشركة دي دستي دلبلا أو فرديو سعيد عثمان حاج محمد أو نكي قندراسي الشركة دا مساج كان غروح بدل نقول دستي العقد الكل دستي حوي 71 500 أنت ضبي كوبي تضبط تكون يشان بقول هذا العقد كله راعي خرشيات كا ama gogashan ama solarkan ama dhirtan noocay dee tahayba qarash uu iska badan yahay waxa weeye iyaduna lacag adigu 8,770 adigu lacagta marka la isku jimciyo 8,370 dollar horta intaas waxa weeye qarashka masaajidku waa halka qaybahaasuna ka kooban yahay sidaa uu Cabdikariin sheegayna ugumaanu talagelin inuu noqdo meel ama iska xiran ama inta lagu tukado laga yaaco waxa lagu talagalay meel furan ilaa 5 waqti kasta la joogo salaada lagu tukan karo cilmi uu ka socdo diinta lagu baranayo annagu reer Cabdidhiif oo ay islaantii reerka maanta ugu weynaa reer Cabdidhiif maanta waxa weeye islaanta halkaas soo fadhida ee masaajidka uu joogno quruxda badan فكر كيسر هي أيدي إن الدقة وضايرة فرشة
ayaa horta maanta reer cabdidhiif dadkii guntii xididkii iyada iyo islaan kale ayay Faadumo Xaashi baa ka nool iyadana ugu weyn maanta reer cabdidhiif waxa weeye waa qofka ugu weyn masaajidka fikirkiisa iyo taladiisa iyo yaani maartay inay dadka ku baraarujiso iyada lahayd Ilaahay khayr ka siiye iyadana ku xusnooday magaceedii baa ku qoran maadaama ay fikirka iyo talada iyo soo jeedinta iyo hoggaanka intaba ay lahayd inaanu reerkan ay ugu weynta in lagu xuso oo iyadu magaceeda la siiyana waxa weeye waa waajib laakiin waxa weeye reer cabdidhiif masaajidka u dhaqaaqiisa iyo hawlgalkiisa dhammaan waa wada leeyihiin ma reer cawil oo kaliya waxa jira iyaguna dad iyaguna sadaqada ku darsaday sida gabadha uu sheegay arkay islaan kale shukri hidiin iyaduna wax ku darsatay marka dhammaan intii wax ku darsatayba ilaa dadka alla bariga maanta aynu karinayno xoolaha intii wax ku darsatay kii dhagax u soo qaaday iyo kii dhoobo u soo qaaday iyo kii shilin ku darsadayba ilaahay qof walba ajra ka siiyo waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay furitaanka masaajidka iyo madrasada waxayna sheegeen in aad ugu faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan furitaanka masaajidkaasi loogu magac daray Xaaji Indhadeeq oo Daahir Afqarshe waxayna aad ugu mahad celiyeen qoyska reer Cabdidhiif oo horay masaajido hore uga dhisay gobolka Sool waxayna bulshada ku dhaqan gobolka ugu baaqeen inay ku daydaan qoyska reer Cabdidhiif ina ku kulmiyay magaalada Aad Cadeeye iyo masaajidkan quruxda badan ee heladu ay runtii ay dhistay insha Allah ta'ala subhanahu reerka barakeeyo reer Cawil Cabdidhiif iyo reer Maxamed Cabdiba iyo dhammaan ay Indhadeeq Ilaahay subhanahu barakeeyo amalka ay la baxeen waa amalkii laga sheekeeyay arinta ayada waxaan aad ugu faraxsanahay anoo qurbaha ka imi Ilaahay subhanahu maanta iwaafajiyay inaan kulanka la kulmo aad baan ugu faraxsanahay waxa muhiim ah masaajidka hadii heladu ay dhistay dadka la doonaya inay buuxiyaan waa magaalada Aad Cadeeye degmada Aad Cadeeye masaajidka inaad camirtaan oo aad ka faa'iideystaan amirkuus waa tii loo sheegado waxa weyn waa salaad iyo cibaado iyo quraan akhris iyo casharada baxa oo aad laasintaan duceeyay waa masaajidkii aan filayaa anigu afraad baan u haystaa inuu yahay waayo Guumeys laba ka dhisay markii koowaad mid ba Xaaji Cabdi ka dhisay Xaaji Cawil haddana waa tii dib loo weyneeyay kana waa kii saddexaad hadeer ka waxaan sheegayna waa kii afraad buu noqon doonaa insha Allah taala sagana in masaajidka loo sameeyo culimo cilmiga ka bixisa waliba la gaarsiiyo aswaaqda maadaama masaajidku hadda aanu wadada iyo halka loo badan yahay uu ka yar baxsan yahay mikrofoono loo sameeyo la geeyo meelaha shaarica wacdiga lagu dhageysto arimahaasna insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa in reerku ku kordhiyaan si bixiyo masaajidka dhismihiisa waxa weeye masaajidka waxaan u dhisnay hadeeb xumayo si tayeysan waxaan rajaynaynaa inuu in badan anfaco deegaanka waan tayeen taasi waa tayada hadeeb xumayo marka waxa weeye waan u ducaynaa mar labaad mar saddexaad waxaan u ducaynaynaa dadka dhammaan isugu yimid meesha waxaan u ducaynaynaa reer Cawil marka anigu reer Cabdidhiifna waa ahay reer Afqarshana waa ahay ducadana kuwa loo ducaynayaan ku jiraayo waa la wadaaga intaas waa duco Ilaahay ha barakeeyo reer Cabdidhiif Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay ha barakeeyo sunno wanaagsan bay inoo jideeyeen waxay caan ku noqdeen masaajid dhisid waxay caan ku noqdeen ceelal qudis Aad Cadeeye waa magaalo waxa laga yaabaa Soomaali weyn oo dhan waa laga helaa laakiin haddaynu intaynu dhisno ka tagno oo lacagta inta leego laascaanood afar daarood uga goyn lahayd ay u quudeen Ilaahay hortii oo kutubteena siiga saarantay aynu nimaadno oo masaajidka jamcu hal saf xitaa ka yaraanayo aynu nimaadno war waa khasaare taasi yani Ilaahay waxaynu ka baryaynaa kuwii ku cibaadeysta ee camira iyagoo Ilaahay ugu dhawaanaya ee jidkii hore hayeen kaga leexday inuu ina ka dhigo hadeen reer cadeenahay horaa loo yiri waan u ducaynaynaa dhammaan dadka la baxay sadaqatu jaariyadaas masaajidka lagu dhisay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo qofka hadduu dhinto camalkiisa raaca buu ka mid yahay sida nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa sadaqatu jaariya weeye idanka ilaahay waa u aqbalayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan uga baryaynaa dhammaan ciddii wax ku bixisay oo hanti leh oo maskax leh oo maal leh oo waqti leh
وعقل يفرسم له إلهي سبحانه وتعالى هاو كرديو ميزانك حسناتك goob waxbarasho inoo fureen waa goob cibaado ilaahay iyo naga isku kan xidhaysa waa goob arrimaheena bulshada aynu kaga tashanayno iska hagayno oo ka toosinayno waa goob aynu fuqaradeena iyo dadkeena baahan ka caawinayno oo waa hay'ad khayri ah marka wax kasta oo bulshadeena ay tahay masaajidku inoo yahayo goob noocaas ay inoo fureen ilaahay ha barakeeyo dambigooda Allah ha dhaafo kuwa nool iyo kuwa geeriyoodayba ilaahay subxaanahu wa ta'ala ubadka iyo aqliga iyo adduunyadaba ha ugu barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay bixiyaan wax ka khayr badan ilaahay ha ugu bedelo subxaanahu wa ta'ala waana lagu yaqaanay khayr bixinta qoyska kan oo waa ogtihiino inda deeq macadka Soomaaliya oo dhan ugu caansan waa macadka Furqaan ee Laascaanood waa mustawaha Soomaaliya ma aha Laascaanood دي ظاهر أفقرشاد أكتهين إنه وقفي وبحيي إلهي سبحانه وتعالى دم بدافع قارسيو قبرها هو نوريو إلهي سبحانه وتعالى وحفي عنه وقفوا إن برايه هاو قادقو بيرها تشنضا مساجد كمركا وحا لغوريتشي الشيخ عبد الناصر حاج أحمد شيخ قبل كاه أو إن الدقيق أي لشرتي أو يرتي وتر مساجد كنا ومدن يهي إن وريتشنتي سيمام الكيسة la ilaaliyo oo meesha hantida inta la eeg qiimaha inta la eeg joogta dukaan yar ba aragteen sida loo kantaroolo loo dabagale ila kantaroolo oo la dabagalo oo la ilaaliyo waa yahay marka sheekhu safar fog oo marqaan buu jiray oo halkaas oo arimo dacwo aaday saasuu isoo wakiishay waxa marka ari cadeeya ahaan masaajidka furihiisa iyo mas'uuliyadiisa culimadu ay isla garteen inuu hayo Sheekh Maxamed Salaabaan Warsame oo kamid ah culimada iyo aqoon-yahanada deegaanka ahna maamulaha dugsiga boardingka ee magaalada culimada magaaladana kamid ah soo dhaw Sheekh Maxamed Salaabaan fadliga dadka dhisaab khayrka sheekha inoo sheegay waxaan leenahay waajib waa inoo dhisay cid loo dhisay inay ku cibaadaystaan waa inaga oo dadka muslimiinta ah ee adcadeeye degan inay soo camiraan oo yimaadaan oo buuxiyaan rag iyo dumarba oo masaajidda marka la dhisayo rag qura looguma talagaleen dumarkuna way leeyihiin oo way ku tukanayaan oo waxbay ku baranayaan oo marka isaga sidii nabiga sallallahu alayhi wa sallam u joogay marka isaga maaragtay inaga haddaynu Soomaaliya waxaad moodaa in marka isaga yaani ay masaajidda iyo marka dumarku inay shaqaba ku lahayn inay tahay ما هو شيء كلية مركز سجاء مركز وحن لا يهي وصحابة عادوا أن يستحيل دار لأن ما يدهن كأنها موعدة مودع وحد مودع رسولك يا الله مذ وحويا دردار ما يسقوتيه وأنا كذا فعل إلى بام هذا قوس كده سير عويل هو عند الدق إلهي حسنات كا هو قدره إلهي كأقبله إلهي كأقبله إلهي ميزانك حسنات كهو كرديو وحي لورد سين إلهي هو كفوليو تتكتت قبله وعمره إلهي هنا جيله الله أكبر فرح محمود بد جوب تشوب